ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka saaka waxaan u fadhinaa guul aad u weyn dhagax dhigi bangiga dhiigga saad la socotiin waxay ahayd muhiimad tiirka ugu weyn tubaha ayuu ku jira arrimaha bulshada waa muhiimadda ugu horeysay ahayd oo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda caafimaadka ay wada go'aansadeen in la dhiso bangiga dhiigga oo national ah kaasoo dabooli doona baahi badan oo aad ogtihiin markii laga soo bilaabo qaraxii 14 dhacay dad badan oo Soomaaliya waxay nooga dhinteen dhiig la'aan iyo dhiig bax iyo laga gaari waa isbitaalka ku dhex agtiisa ku yaala waa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka oo iyada naftirkeeda ay tahay hooyooyin badan ay u dhimanayaan dhiig la'aan iyo caruur badan marka waa milestone weyn la gaaray hormud uu ku yahay ra'iisul wasaaraha waxaan ku faraxsanahay maanta inuu nagala soo qayb galay oo dhagaxa noo dhigay wasiir Fawsiyo iyo dhammaan wasaaradaha qaybta ka ah tubta arrimaha bulshada waxaan uga hambalyeeynaa maanta inay tahay maalin weyn oo macnaheedu tahay inaan soo dhagax dhignay xaruntii gurmudka qaran ee gargaarka degdega haddana aan dhagax dhigayno bangiga dhiigga ee Soomaaliyeed oo la dhisi doono marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa wasiiradda iyo dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay oo suurta geliyay in halkaan maanta aan dhagax dhigna dhismahana la bilaabi doono ayna noqon doonto bangi dhiig u adeega dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan sidaad ogtihiin barito waa sanad guuradii labaad ee dhacdadii xanuunka badnayd ee 14 Oktoobar oo dib badan ummadda Soomaaliyeed dareensiisay laakiin muujisay ummadda Soomaaliyeed wax walba ku dhaca inay isaga yimaadaan iyaguna isku tashadaan dhacdadii xanuunka badneed awgeed wiilashii iyo gabdhihii Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed u gurmaday talooyinkii ugu horeeyay ay bixiyaan waxay ahayd in la dhiso xarun gurmad qaran lana dhiso bangiga dhiigga waxaan uga mahad celinayaa dadaalkii ay muujiyeen wiilashii iyo gabdhihii ka shaqeeyay waxaan ugu bishaareynayaa in dawladoodu ay maqashay taladoodii iyo hadalkoodii xaruntii gurmad qaranna la dhisi doono bangiga dhiiggana aad u jeedaan inaan dhagax dhignay waxaan idinku casuumaynaa inaad noo timaadaan oo aad nagala shaqeysaan sidii loo howlgelin lahaa markii la dhiso ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan iraado halkan ka iraado dadka Soomaaliyeed dib badan ay soo mareen laakiin inaan ka fikirayna adeeg caafimaad iyo adeeg waxbarasho iyo bangi dhiig iyo xarun gurmad qaran ayaa iyada lafteedu tusaale ah horumarka dadka iyo dawladnimada ay sameynayso waa mahadsantiin wassalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim mudane ra'iisul wasaare golaha wasiirada madaxda wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka mudanayaasha ka tirsan golayaasha labada gole taliyaha maareeyaha wakaaladda horumarinta dhismaha shaqaalaha wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan dabadeed mudane ra'iisul wasaare sharaf weyn ayay inoo tahay kasoo qaybgalkaaga xafladdan lagu dhagax dhigaayo xarunta gargaarka gurmadka qaranka oo hoos timaada wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka
runtii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayay hoos timaadaa xaruntaani waana wakaaladii hargaha iyo saamanka waa dhismaha maanta aan joogno kaliya ma ahane dhismayaasha naga dambeeya dhammaantood waxa weeye aad ay u ballaaran tahay wasaaraddaani markii hore waxay ahayd laba wasaaradood oo ganacsi iyo warshado kala madax bannaan runtii dhismayaal fara badan iyo hanti fara badan ay waddanka ku leedahay marka wakaaladda hargaha iyo saamankuna waxay ka mid tahay xarumaha loogu talagalay oo wasaaradda hoos imaanayay runtii annagoo ka duulayna tusaalahaagii mudane ra-iisul wasaare iyo muxuu ahaa tilmaamahaagii wasaaradaha dhammaantood waxaa u dhexeeya xiriir wada shaqayn waxaana ka go'an inay ku wada shaqeeyaan hantida dowladdu ay leedahay inay wada isticmaalaan runtii aad ayaan maanta muxuu ahaa u soo dhaweynaynaa dhagaxdhigaaga xaruntaana waan ugu deeqnay wasaaradda horena muxuu ahaa adaa ugu deeqnay marka waxaan rajaynayaa tii one stopkuna halkeeda ayay kasii socon doontaa oo muxuu ahaa maareeye bashiir ayuu ka soo wadi doonaa iyadana mar dhow ayaad insha allahu ilaah hadduu idhaahdo ayaad muxuu ahaa dhagaxdhigeeda ama furitaankeeda ayaad ka qayb qaadan doontaa tanna aad ayaan u soo dhaweynaynaa aadaan ugu faraxsannahay mudane ra-iisul wasaare waxaan rajaynaynaa insha allahu in wax badan ay ka tari doonto gurmadka loo fidinaayo dadka ama badbaadada loo fidinaayo dadka Soomaaliyeed runtii waana aad ayaynu noogu tahay waxyaabaha mudnaanta u leh waddanka mudane ra-iisul wasaare aad ayaan muxuu ahaa kuu soo dhaweynaynaa iyo muxuu ahaa madaxda halkaan joogto waxaan rajaynaynaa dhismahan furitaankiisii inuu isagana noogu xigi doono inuusan muxuu ahaa fogaan doonin marka mudane ra-iisul wasaare sharaf weyn ayay noo tahay ugu dambayn waan ku soo dhaweynaynaa insha allah